sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin kare jacayl taariikhdan kala wadnaha taabuu ka fahan sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin kare jacayl taariikhdan kala wadnaha taabuu ka fahan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا dhalinyarada halkaan saaxiibada ku naano iskugu jiri gabdhiyo wiilal maanta iyo muuqaal cusub. muuqaalkan waa muuqaal ka turjumaya heesaha ugu saameynta badan dhanka TikTok-ka. waxaan soo qaadan doonaa raashin ka bixin doonaa mid ka mid ah heesaha waqti xaadirkan TikTok-ka aad ku xamaasada badan oo heesato iyo dadka ugu magaca waaweyn TikTok-ka iska duubeen heestaas. waana Cabdullaahi Kashka halkaan naga daawanaysana waa janaalka Kashka. fadlan dhawaan waxaan geli doonaa 200,000 subscribe insha Allah in aan halkaas gaarno. adika mas'uulka heeska ayaan gudaha u gali doonaa. waxaan rabaa heeska markii aan gudaha u galno oo heeska macnaha inaan fadhiga ka kacdo oo aad dareentay boodbood iyo baashaal loo baahan yahay. waayahay heeskaas waxaa qaaday fanaanka weyn alfanaan waqti xaadirkanna soo baxaya waa Albakri alfanaan Albakri oo wiil la yiri asii guuleedsanba macnaha waxba isma dhamaana ka codka. waayo waa wada arki doonaa Albakri iyo heeskiisa iyo dhanka TikTok-ka. daawasho wacan sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin kare jacayl taariikhdan kala wadnaha taabuu ka fahan. wow sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin kare jacayl taariikhdan kala wadnaha taabuu ka fahan. wow malyumaanka fanaaniinta Soomaalida mid ka mid ah gabdhaha ugu codka macaan heeskan si khatar ay u baxsatay degnaanta dhoola cadeynta iyo ilkahan ay marsatay yaa aad u qurxinaya muuqaalkeeda wajiga. aniga waxaan siin lahay 10 aan siin lahay 10 aan siin lahay sababtoo ah qaab qurux badan oo soo jiidasho leh iyo muuqaalkan ay u sameysay. adiga daawanaya waxaa loo baahan yahay in aad adigana qofka u qalbo dadka aan soo qaadan doono in aad adigana sheegtid dadka u qalmase macnaha aad tira aad sii kartid. waayahay malyumaanka oo kasii gudbi doona yaa xiga sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin kare jacayl taariikhdan kala wadnaha taabuu ka fahan. sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin kare jacayl taariikhdan kala wadnaha taabuu ka fahan. waa habboon 115,000 oo qof aa like saartay ama love saartay. ما شاء الله والله عدين شح فرنان. انا واجع dadka sidaan oo kale wax u duubay sababta ku jecel cid qofku inuu sameeyaa macnaha farxad iyo baashaan oo qofku macnaha oo waxa ka soo qaadin ba ana kamid tahay dadka macnaha TikTok-ga aad laakiin waayahan daba goona walaga waa TikTok-ga heeskan wanaantan ayaa si adiga meeqa u qalmataa habboon inta u qalmato waa inoo soo qori kartaa iyo kaalinta gelin lahayd. waayahay maxaan sameyn doonaa iyo qofka sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin kare jacayl taariikhdan kala wadnaha taabuu ka fahan. ayada iyo moobalaheeda sidaan moobala weyn ay wadataa hanka kugu tolay afkaygu ma tabin kare jacayl taariikhdan kala wadnaha taabuu ka fahan. wow ritash kuwi ritash 15 minute ayuu yaalaaba sida meesha ku qoran 15 minute ago markaas soo la soo dhigan soo qaatay asoo markaas la soo dhigan soo qaatay ritash waxaan waxaan siinaa aniga 10 ayaan siinayaa. waana mid ka mid ah waqti xaadirkan TikTok-yada ugu waaweyn Soomaalida ay leedahay gabadhaas Muqdishona hadda number 1 ka ahayn waa iska number 2 ama number 3 saddexdaas ay u dhaxaysaa. waayahay ritash aad ugu baxsatay wala cadeyntaada iyo moobalahaada waa ku salaama. waayahay qofka xiga sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin kare jacayl taariikhdan kala wadnaha taabuu ka fahan. wow DJ Amit sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin kare jacayl taariikhdan kala wadnaha taabuu ka fahan. wow DJ Amit kala ilaaba ugu baxsaday muuqaalkan 10,000 qofna waa love gareysay waa la gareysay 10 asagana siina sababtoo ah macnaha
dadka ani qofka haduu mar dhoola cadeey buu wataa ilaahay amarkiisa haduu qofka dhoola cadeey wataa ani qof xiran bis ay dhibay qof xiran oo waji dheer oo micnaha oo qoysta amal meel fadhiya diidanay ani iga ilaali waxaas oo kale wayna dhoola cadeyn kartaa ha waa kale weeraysiya wayna dhoola cadeyn kartaa si oo kale wayna dhoola kashka ma ahay haye muuqaalka xiga haye sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin karin jacayl taariikhna gala sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin karin jacayl taariikhna gala wow hesta laakiin half way suntus alaabtan gaalka ayaa laga xirtaa miya wow alaab waxa waaye labada gees ka timid aqul labada gees saas wow waa model another level way dadka ay qaas u diiday waxa waaye Puntland ma sha Allah xigta Puntland aan dhihi karaa gabadha 10 ka waa ku siiyay sababta kugu siiyay waxay tahay dharkan awooda tidaaba another level ah waa alaab duuleysa wadata 10 ku siiyay waan u qalataa meeqa u qalataa dhiga daawana muuqaalka sudus arteen meeqa si la 12,000 oo qof ayaa la garaysay waayay qofka xiga haye aan wada aragno haye sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin karin jacayl taariikhna gala wadnaha taabuu ka fahan si fiican sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin karin jacayl taariikhna gala wadnaha taabuu ka fahan wow wiilkan isaga mootayga kal ilaaba muuqaalkan uga baxsaday 1700 qofna way la gelisay muuqaalkan sababta muuqaalada usoo xishoo dareemaysid qofka xiran ma wata u jeedinay dadooda dhoola cadeenayo dad farxad ka muuqato dadooda bodboodahay sababtoo aniga dhanka farxadda aad u qiimeeyaan dadka farxadda watana waa dad aan aad u xiiseeyo wiilkan asagana 10 ayaan siinayaa sababtoo ah qaab khatar ah iyo muuqaalka ugu baxsaday horta isku sheegno haye qofka xiga sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin karin jacayl taariikhna gala wadnaha taabuu ka fahan haye sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin karin jacayl taariikhna gala wadnaha taabuu ka fahan wow 22,000 qof 22,000 qof aan dhaho 200 committee ayaa u jeeda ayaa macnaha la gelaysaa dhaho aniga waxaan sii lahay 10 aan sii lahay sababtoo ah waa qof aad u dhoola cadeynayo muuqaalkan ka baxsaday qaab qurux badan hadda u jiray qofka ugu dambeeyana muuqaalkaas ayuu ahaay hadda kala iska arag waxaan soo qaadanay maxay ahaayeen dadka waqti xaadirkan ugu saameynta badan TikTok iyo sidoo kale heeskii ugu saameynta badnaa heeskaasna waxaa qaaday waa fanaanka weyn Albakri ayaa qaaday Albakri ugu soo orod maahaya heeskaas uu ku baxsaday waa fanaan hadda soo koraya waa fanaan hadda soo baxaya waa fanaan aad u cod macaan aaminsan anigana inuu dhawaan qabsan doono shaashadaha kala duwan Soomaalidu isticmaalaan noqdaan TV-da ama TikTok ka noqdaan ama meel walba YouTubers ha noqdaan anigana guula u rajeeyo doonaa adiga ahaan fanaanka codkiisa iyo sidoo kale waayahay dhawaan 200 subscribe gali doona sidaas nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh